السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya ha noolaad. Ogaadeenii ha guulaysato. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay bulsho intaan la eego Soomaaliyeed inay isugu timid halkan inay u doodayso dhul Soomaaliya oo dhan ku wada noolaa. Marka dhulkaas haddii aad moodeen inay ka maqan yahay Ogaadeenii ama dadka Soomaali galbeed waxaan u sheegaynaa in dhulkaasi uu ka wada maqan yahay Soomaaliya oo dhan in annagana aan ka mid nahay dadku ka maqan yahay waxaana saacadan idin badan qaadaynaa inaan aad idin la shaqayn doono. Soomaaliya meel kasta ay joogto waa isku af, waa isku dhaqan, waa ubad aabba dhalay sina uma kala maaranto. Sidaas ay tahay Soomaaliya iyo Ogaadeniya waxaan wada leenahay hal cadow waxaan loogu bixi karaa isku duubni iyo wadajir daba dhilif iyo daba boodi in la dagaalamo iyo dhammaan kuwa ka soo horjeeda midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaankooda. dadba waxay aaminsan yihiin in ragga wariyaasha ah iyo hablaha ka shaqeeya aanay lahayn dhul amaba ay la saftaan hadbicidii ay war ka soo qaadaan. danta iyo sirta sidaasi ma aha. Soomaaliya ayuu ninkan ka dhashay suxufiga ah wuxuuna leeyahay dal uu ku dhaato waayo waxaa ogaan kartaa waxa halkana keena waa barakac iyo dhibaato cadowga Itoobiya idinkii soo barakaciyay annagana soo barakaciyay qarankeena u baafiyay meel kasta oo aad joogtaan waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed idinama aha ee way idinla jirtaa ubad kasta ee Soomaaliyeed waxa uu ku fikirayaa sidii Soomaali ay mid u ahaan lahayd waxaan taag ka marqaatiya calankaasi shanta gees leh ma aha mid la iska keenay ee waa mid fikrad ku yimid ahna ubad shan ay aabbooda dhalay ee dunida dacaladiisa ku firarsan cadow Soomaaliyeedna uu kala geeyay waxaan ku fikiri doonaa in dhulka Soomaaliyeed waxaan leenahay cadowga Soomaaliya ha dhaco cadowga Ogaadeniya ha dhaco cadowga NFD ha dhaco meel kasta ay joogto Soomaaliya waxaan rajaynayaa midnimo guul. Allahu akbar Allahu akbar Soomaaliya guud midnimo ay rajayn doonaan.